سيدا درتد قبضة حائضة صلاة دي واللغا حرمي واجب يا مارتي سنة لبضبا صونكي بان ليهاي هدي يضع صونكي صومانو دحدا اوجر تحيدكي وكوي مادنا صوم كاسي وكبري ومالين كلا إني سوق ضيصو هل مالين انتي سو صونتي هل دقيقة وحكير ولو لبا صدح البرقصبة هاتي انت أنا أفرك اللي جارين وقرح دي أنا يدعين هدي حيدك وكوي مادو مالين كاس قبضا وكبري مالين كلا يمركا قضينيسا محايا لي ماشي مانع بايمد أو وحا ويمركا أيسان صونكي سيو دي كرين إساقا درتيسا يعني قبيل الفجر علماء وحيد عن مثالي كينانو صلاة الفجر كهر انت آن لقارين او حلقي السحور آن لقارين هدو قبضا حيدك كقعو ويسوميسا وين ظاهر سنيسا إن شاء الله تعالى وإن ظهر ستوي قبيستوى واجب ويان يعني سيدا سلمي هدي قرح دي وأنا ندعين سيدي آن تلماني هل البرقسية لما البرقسي كهر وحيدك كوي ماذا ما انتو دانا إسوسو مريد صونكا إساقا أهواء بري مالنكا دبه أسو قضينيسا حكم كاسنا وحكم كصونكا حكم كصدحات أو أحكام تحيدك أو لغاها الله وحوي وحل إلى هذا ضوافك كعبدا إيا بيتك إلهي لضواف سبحانه وتعالى قبضا مسلمات دها حلق حيدك أي قبت واجب بوكيهي حرام بوكيهي oo ma aha dawaafka ama farad isaga laftiisa ha sida dawaaf al-ifaadihi ama dawaaf caadi oo sunna ah isaguna ha ahaado yaani nabiga xadiis baa ka sugan radiyallahu ta'ala anha Aisha iyadoo ay la socotay xajki ayaa xayd ku dhacay maxaa sameeyaa bay tir rasuulka Allah wuxuu ku yiri if'ali kullama yaf'alu al-hajj ghayra an la tadufi bil bayt hatta tadahhari يعني وحو الحاجة وحلا وحو سمايا أو دان سماه لكن كعبدها ضواف إلى ظاهر نقطة سيدا درتي دوا قبضنا مسلمات دا يدنا واللغا حرمي حلقا حايدك أي كجرتو إني كعبدي ضوافته وحا أون لغا صوريبا كلية ضواف الوداع أو رسولك عليه الصلاة والسلام يري قفكي حجك سمايا حجية أما عمريستا waxa ugu dambeeya ee uu kaga baxo ilaahay beedkiisi ha noqdo dawaaf uu ku sagootinayo dawaaful wadaa la dhaho hadii gabadhi muslimada ay xajisay oo dawaafkii xajka oo dawaaful wadaa ah ay martay oo iyadoo kii sagootinta xalay dawaaful ifaadihi ay martay oo kii sagootinta ahayo wadaa ah kaliya u dhimantay hadii xaylku ku yimaado waa laga cafiyo way iska tagi kartaa marka iyada way tagi kartaa laakiin طوافك كلا إسقى واجبك أمارته وإني أظهر ستوي كمان أدعى ضواف الإفاضه هي ضوافك حجك هي كي عمره ما ركتي كجاء ودعي مايو حكم كاسنا وحكم كي ضوافك كسر أروري وواك حراوي حكم كشناد وحو إسقنا النقنيا علماء المسلمين تونا أي كهلان قبضنا مسلمات دو هذه حيض أي قبطه إني حاران كتهي مساجدك إني دحفر لذو إني بيتك إلهي دحفر لذو إن لو ديدي ولو أي مسألة أيضا خلافيتهي أو علماء أي وحي اسكر عسيه هنا نصوصت أي تلمانتي أو قوضنا مسلمات حال كحيدك أي كجرت كحرام وعفر وصلاة دي يصامكي يوحويان طوافكي iyo in jamaaci maaragtay lagu sameeyo ninkeedii u galmoodo afarta waa la isku raacsan yahay wax alla wixii ka soo haray khilaaf baa ku jiro tana kamila masaladatan yaani maaragtay masaajidkii ma dhex fadhin kartaa oo ma dhex nagaan kartaa oo darsi ma ka qaadan kartaa yaani waxa weeye way diideen culimo aad u fara badan oo waxay maaragtay u daliishanayaan nusuus ay kamid tahay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ciida markii la gaaro wuxuu amray dumarku inay soo baxaan oo xataa tii aan xijaab haysanin gabar kale oo walaasheed oo laba xijaab la ay mid ka qaadato oo ay ka soo tabal caaraysato oo waliba ay haweenka guryaha lagu kaydiyo oo maaragtay qolqolada ku jiro oo maqbiyooyinka xataa marka in la soo saaro ciida loo soo saaro khayrka ay ka qayb qaataan wuxuu marka raaciyay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam laakiin dumarka xaydka qabo
هكذا وهكفقادين ماشا اللي قلت كان يعيده ماشا عيد اللي قلت كان هي مصلها مساجد معها marka culimadu waxay leeyihiin maadaama meesha banaanku rasuulku ku tukan jiray loo diiday min baabi awla waxa masaajidka in loo diido in masaajidka loo diido oo masaajidka marka aysan imaanin waxa maaragtay ay leeyihiin culimadu yaani maaragtay hadii meel masaajidka ka baxsan oo mikrofoonku uu soo gaarayo musallaha masaajidka meeshii la ictibaariyo masaajidahan loo niyooday aanay ahayn halka intay fariisato wax way ka dhageysan kartaayo duruusta iyo muhaadaraadka way kala socon kartaa waxa iyadana insha Allah xukunka lixaad uu yahay jamaa wa isagana haweenta xaydka qabto inaan loo dhawaan karin oo loo galmoon karin ilaahay baa quraanka ku sheegay wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahid haweenki ka dheeraada xilliga xaydka marka ay ku jiraan mahidkana waxa laga wadaa yaani marka iyada in looga galmoodo xubinkii taranka in looga galmoodo ama wixii mubaasharo iyo maaragtay taataabasho iyo haweeneyda xaadka qabta ninkeeda inay wax la cunto inay maaragtay la seexato in maxaan ku iraahdaa intaas oo dhan waa ay bannaan tahay sidaasuna nabigeena calayhi salaatu wassalaam yuu samayn jiray maaragtay markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi xadiidkii muslimka ku yimid isnacuu kulla shayin ila an-nikah haweenka xaydka qaba wax kasta ku sameeya oo wax walba sameeya waxaan ka ahayn nikaax oo marka laga wado jamaaciya galmadi ka isagu waa xaraan way waana la isku raacsan yahay masalada toddobaad waqtigii baa insha Allah iga dhamaaday oo aan rabo inaan iyadana ku dulmaro waxay tahay haweeneydu markay xaydka qabto waxa xaraan ka in la furo quraanku alla ku yiri ayuha nabiyyu idha dallaqtum an-nisaa hadii aad haweenkii furaysaan fadalliquhunna li'iddatihinna iddadooda ku fura waqtigii ciidadoodu waa yahay fura ciidadu waa goorma ciidadu waa yahay du sheegtay waxa way haweentii oo daahir ah oo xayd aan qabin oo daahirsatay ninkeedina aanu arag weey oo riximkeedii bari yahay marka sunnada ah in la furo waa midka dalaaqa sunnada ah dalaaqa bidcaga ah oo gabadha aan loo goleen in la furo waxa way iyada oo xayd qabta in la furo iyo iyadoo ka daahirsatay laakiin ninkeedii uu arko u tagay inuu furo labadaba waa bidco weey sida darteed haweenta xaydka qabta laba furi kara hadii la furane waa la soo celinayaa ninkeedii uu soo celinayaa markaas kadib uu ama haysanaya ama waxa weeye uu si toos ah u furaya ibn umar baa sidaa sameeyay radiyallahu anhuma abihi baa xanaaqay umar nabigu u tagay waxa lagu amro leeyahay hadda gabadhi soo celi markaas soo celisid kadibna markay daahir noqoto ama hayso ama fur ma dhacay dalqada dalaaqa ma dhacday oo xaydka lagu furay gabadhii mise ma dhicin waa mas'ala culimadu isku khilaafeen oo ay leeyihiin qaar badan way dhacaysaa waana dambi qofkii sameeyayna waa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu toobad keeno waqtigii baa insha Allah ta'ala inta iga dhamaado mar hore aziir la isoo dhajiyay waxna waa ii dhiman yihiin kala ahkaamta dalaaqa مركلان إن شاء الله تعالى لما يستري دون هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خيرا جزاه الله خير الشيخ